maanta waxaa magaalada Muqdisho ka dhacday doorashada guddoonka guddiga doorashada heer federaal oo ka kooban 25 xubnood kuwaas oo gudoomiye cusub u doortay Muuse Geelle Yuusuf kadib markii xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiye hore ee guddigaasi Maxamed Xasan Ro. doorashada dhacday maanta ayaa kaliya ku koobneed xilka gudoomiyaha maadaama aan xilka laga qaadin ama uusan iscasilin gudoomiye ku-xigeenka guddigaasi Mawlid. doorashada maanta ayaa waxaa ka soo ifbaxay xulafooyin siyaasadeed oo lama filaan ah ayadoo ay isku dhinac noqdeen kooxo aan laga filanin halka kuwa saaxiibo dhow ahaana ay ku kala tageen. hoggaanka guddigan oo ah mid muhiim u ah doorashada Soomaaliya ayaa waxaa ku loolamay laba musharax oo taageero ka kala helaya dhinacyada siyaasadda Soomaaliya isku haya. doorashadan ayaa waxaa markii ugu horeysay ay isku xulafo ka dhigtay Farmaajo qaar kamid ah mucaaradka iyo qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada halka ra'iisul wasaare Rooble iyo Denina ay dhinac noqdeen. Muuse Geelle Yuusuf oo guddiga ka soo galay dhanka maamulka Puntland ayaa waxa uu taageero ka helay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Deni halka musharax Cabdiraxiim uu taageero ka haystay madaxtooyada Soomaaliya iyo qaar kamid ah midowga musharaxiinta mucaaradka. ugu dambeyntii waxaa tartanka ku guuleystay Muuse Geelle Yuusuf oo ah musharaxii ay wateen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha maamulka Puntland Deni kadib markii uu helay codad gaaraya ilaa 14 cod. Cabdiraxiim Cabdicasiis Aadan oo dadka badi ay u yaqaanaan xiirane oo la soo shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaare Rooble wasaaradda gaashaandhigga iyo hay'adaha madax bannaan ayaa isna helay 12 cod wuxuuna ahaa musharaxii ay wateen Villa Soomaaliya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftigreen iyo qaar kamid ah xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka. xubnaha qaar ee guddigan ku jira ayaa waxa ay wax lala yaabo ku tilmaameen in ay xalay arkeen xubnaha Farmaajo iyo kuwa mucaaradka oo si wada jir ah ugu ololeynaya Cabdiraxiim xiirane. macada sababta ay mucaaradku uga soo horjeesteen musharaxa uu watay Deni balse waxa la rumaysan yahay in ay diidan yihiin in awoodda guddiga ay si buuxda ugu gacan gasho Deni oo ah musharax madaxweyne. waxaa sidoo kale suurtagal ah in ay taageerada Cabdiraxiim ay doonayeen in ay ugu dhawaadaan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftigreen oo watay musharaxani. Muuse Geelle Yuusuf oo madax ka soo noqday gobolka Bari waxaa loo arkaa inuu wax badan ka tari karo musharaxnimada Deni oo kamid ah musharaxiinta ugu cadcad ee sanadkan. guuldarrada soo gaadhay Villa Soomaaliya iyo xulafadeeda ayaa ka dhigan in maamulka guddiga doorashada heer federaal uu la wareegay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo xoogiisa isugu geeyay sidii uu maamuli lahaa doorashada Soomaaliya. dhinaca kalena maamulka gobolka Banaadir oo haatan xiisad xooggan ay kala dhaxayso xukuumadda Soomaaliya ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble gaar ahaan wasaaradda amniga gudaha ayaa ku dhawaaqday go'aan kale oo uga sii dari kara xiisadda haatan taagan. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali oo shir jaraa'id u qabtay wariyaasha ayaa sheegay in cid aanan ahayn maamulka gobolka hadda kadib lagala tacaamuli doonin arrimaha magaalada Muqdisho gaar ahaan amniga. Cali oo si toos ah weerar ugu qaaday xukuumadda ayaa tilmaamay in inta lagu jiro doorashada uu gobolka Banaadir u madax bannaan yahay taladiisa iyo amnigiisa. inta doorashada lagu jiro maamulka gobolka Banaadir wuxuu u madax bannaan yahay taladiisa siyaasadiisa iyo amnigiisa mana jiro qof kale oo arintaasi amniga ku saabsan lagala tacaamuli karo nooc kasta oo ay tahay ayuu yiri Cali. sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray waxaan ula simanahay wasaaradda amniga sida gobolada kale ee Soomaaliyeed haddii aanan waraaqaha wasaaradda amniga ka socon karin Boosaaso Dhuusamareeb Jowhar iyo Baydhabo ma jirto sabab culays gaar ah loo saaro gobolka Banaadir ayuu hadalkiisa sii raaciyay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir. dhinaca kale wuxuu soo dhaweeyay go'aankii ka soo baxay odayaasha dhaqanka ee dib loogu dhigay dibadbaxii ka dhanka ahaa isku daygii afgambi ee Farmaajo wuxuuna sheegay in ka maamul ahaan ay tahay sababta ay u diideen amniga caasimadda dartiis. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyay ay hadallo kulul warbaahinta isku marinayeen madaxda gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya oo horey u shaacisay in ay iyadu fasaxday dibadbax nabadeed ee haatan dib loo dhigay. si kastaba haddii uu sii socdo dagaalkan siyaasadeed ayaa saameyn kara amniga caasimadda iyo wada shaqaynta xukuumadda iyo gobolka oo ku xiran Villa Soomaaliya.